dagaalo ka dhacay duleedka Laascaanood iyo faahfaahin ka soo baxaysa. warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaalo kooban oo xalay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee la magac baxay SSC. dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo xiisad dagaal ayaa fiidkii hore laga dareemayay goobaha ay isku horfadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee duleedka magaalada Laascaanood, balse markii dambe ay dagaalameen. goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in muddo ka badan 30 daqiiqo uu dagaal ku dhex maray duleedka magaalada Laascaanood ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka, balse aysan weli ogeyn khasaaraha ka dhashay. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya duleedka magaalada Laascaanood waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, balse markasta la filan karo dagaalo maadaama dhinacyadu ay weli is horfadhiyaan.